السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال kusoo dhawaada cashirkeena shanaad oo kamid ah cashiradii taxanaha noo ahay ayaan kaga hadlaynay talaalka. Cashirkan shanaad oo aan maanta hadduu Ilaahay ka raali noqdo aan uga hadli doono talaalka la siiyo caruurta ee lagaga hortago jadeecada. Waxaan ka hadli doonaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo jadeecadu talaal ma leedahay looga hortago. waa haa, jadeecada talaalkaas looga hortago faa'iidadiisa ayaan ka hadli doonaa, laakiin inta aanu hadduu Ilaahay ka raali noqdo u gelin faa'iidada uu leeyahay talaalku iyo sida loo isticmaalay waxa uu yahay ayaan waxaan ku hormari doonaa insha Allah. jadeecada inaan iyada isla fahanno aan isla qeexano aan bal wax ka fahno jadeeco waxa ay tahay, maadaama la heli karo dad aanu garanaynin waxa ay tahay jadeeco iyo dhibaatada ay geysan karto. Hordhac ayaan ka sameysanaynaa jadeecadu waxa ay tahay. haddaba su-aashaas weydii kartaa waa maxay jadeeco ayay noqonaysaa. waa maxay jadeeco? jadeeco waxa ay dabcan noqonaysaa cudur laba qofood ay kala qaadi karto, kaasoo si aad u sareeya markaasi u ah mid qof ka gudbo qofna u gudbi kara markaasi. cudurkaasi oo ay sababto virus noole in maaragtay loo yaqaano virus ayaa sababa, kaas noolahaas in maaragtay viruska oo markaasi waxyeeleeya epithelial surfaces oogada xuubka jilicsan ee markaasi ku jira afka, xubnaha taranka, mindhicirada dhexdooda iyo markaasi wixii la halmaalo ku jira, iyo immune systemka ama habdhiska difaaca jirka oo qofku leeyahay ayuu waxyeeleeyaa. kaas ayaa markaasi waxaa la yiraahdaa jadeeco. xilli huuriska cudurkani markaasi loo yaqaano jadeecada ayaa caadiyan waxa uu yahay 10 ilaa 12 maalmood markii laga soo bilaabo qofka qaaditaanka uu qaado cudurkani ama uu bilaabay ilaa calaamada koowaad ee kasoo baxayso, taasoo inta badan calaamadaasi ay tahay qandho qofka qabata. haddaba waxaan rabnaa inaan ogaano calaamadaha lagu yaqaano jadeecada maxay yihiin guud ahaan. calaamadaha caanka ah ee lagu yaqaano jadeecada ayaa waxaa kamid ah markaasi qandho aad u sareysa, taasoo caadiyan ah calaamada koobaad ee lagu yaqaano qofka jadeecada ee ku dhacday. kulka markaasi ama heer kulka qofka jirkiisa ayaa caadiyan soo dhaca kadib maalinta 3 ilaa maalinta 4 markii la gaaro. wixii ka dambeeya ayuu soo dhacaa markaasi qandhada ama heer kulka qofka jirkiisa ah. waxaa kaloo lagu yaqaanaa runny nose ama inuu sankiisu da'o qofkii oo ay diif biyo ah oo ka imaado. calaamad kale lagu yaqaano waaye. calaamada kale lagu yaqaano waa qufac. waxaa kaloo lagu garan karaa qofka inuu cuntadii ka go'o. sidoo kale waxaa lagu yaqaanaa inuu indhihiisu ay noqdaan kuwa casaan ah ama gaduud ah. waxaa kaloo lagu yaqaanaa qofka inuu ka cabsado iftiinka oo iftiinku dhibo oo indhaha ka qarsado iftiinka ama uu ku qeelsho canuga qofkii iftiinku daara ama uu ooyo ayaa lagu yaqaanaa. calaamada kale ee markuu kasoo baxo dadku aad ay u xaqiiqsadaan inay yihiin waxa canuga haya jadeeco ayaa waxay tahay canug in ciif jirkiisa oo kasoo baxo jacjac jirkiisa oo yeesho, taasoo caadiyan soo muuqata maalinta 3 ilaa maalinta 7 ayay soo muuqataa. waxayna ka bilowdaan ciifkaas oo ka bilowda ama nabrahaas yarka ay ka bilowdaan markaasi qaybta dambe ee dhegta ka dambeeyda. dhegta gadaasheeda ayuu ka bilowdaa, kadibna wuxuu ku fidaa markaasi inta kasoo harta jirka. qaybaha kale jirka ayuu ku fidaa. dhegta qaybteeda dambe ilaa tinta ay qaybta tinta ee dhegta u dhaxaysa ayuu markaasi kasoo baxaa, kadibna wuxuu ku fidaa jirka guud ahaan. marka ciifkaas ama jacjacaas qofka jirkiisa canuga ka imaanaya ama nabrahaas yarka ayaa waxay sii daciifaan maalinta 5 ilaa maalinta 6 kadib way sii daciifaan way sii dhamaanayaan markaas. haddaba cudurkan sidee loo kala qaadaa? waxaan rabnaa inaan ogaano maadaama calaamadihiisa fahanay oo isagu wuxuu yahay aan fahanay jadeecada aan fahanay, sideeba haddaba loo kala qaadaa? cudurkani jadeecada wuxuu kasoo gudbaa qof wuxuuna u gudbaa qof asagoo maraya taabasho qofkii oo taabtay, dheecaano ka yimid dhuunta iyo sanka shaqsigii qabay cudurkaasi ama dadkii qabay cudurkaas dhuuntooda ama maxaa ku dhacay sankooda. dheecaanadaas ka yimid qofkii markuu taabto ayuu cudurkii qaadaya. waana dhibca ama dhibco hawo ahaan usoo baxaya, taasoo ay lasoo daynayo inta lagu guda jiro
hindisyada iyo qufaca. Shaqsigii qabay markaasi cudurkani loo yaqaano jadeecada ama canug yar ay qabay, qufaciisa ama hindisadiisa ayuu hawadaas wuxuu kusoo dari karaa dhibcahaas ayaa waxaa ku jira xaddi ah fayraskii keenayay jadeecadii, saas ayuuna qofkii markaasi ku qaadi karaa. haddaba maxaa ka dhasha jadeecada qofka hadduu ku dhaco ama canug yarkaa markuu jadeecada ay haleesho maxaa ka dhasha? Canug yarkaa marka jadeecada haleesho waxaa ka dhasha shuban ayaa ka dhalan kara. waxaa kaloo ka dhalan kara dhegta qeybta gudaha in canuga xanuunto loo yaqaano otitis media ama ay keentaba malax. waxaa kaloo ka dhalan kara pneumonia cudurka la yiraahdo ama oof-wareenka. waxaa kaloo ka dhalan kara cudurka loo yaqaano encephalitis ama caabuq ku dhaca xuubka ku daboolan ama dahaarka ku daboolan maskaxda iyo xangulaha. waxaa kaloo markaasi ka dhalan kara malnutrition oo nafaqo daro. ugu dambeyntiina waxaa ka dhalan kara death oo dhimasho ayaa ka dhalan karta. marka maadaama aan kasoo hadalnay oona isla soo fahanay waxa ay tahay jadeeco iyo sida loo kala qaado iyo calaamadaha lagu garto, haddaba maxaan uga hortegi karnaa cudurkani maadaama cudur dhimasho calaamada ugu dambe complication ugu dambe oo yahay dhimasho? maxaan haddaba u isticmaali karnaa inaan uga hortagno maadaama uu yahay cudur aan daawo lahayn? maxaan uga hortegi karnaa? talaalka looga hortegi karo markaasi jadeecada ayaan isla fahmaynaa. talaalka looga hortegi karo jadeecada haddaba waa talaal noole, waa virus nool. qofkii waxaa la siinayaa noolihii ilma aragtada ahay oo nool ayaa la siinayaa markaasi, oo talaal laga soo sameeyey, daawo laga soo sameeyey. talaalkaas ayaa markaasi wuxuu lid ku noqon doonaa jadeecadii. waxaa la qaadanayaa inta badan la siiyaa canuga 2 doos ayaa la siiyaa, inkastoo sida caadiyana Soomaalida ay siistaan 1 doos. dooska labaad ayaa waxaa la siiyaa canuga markuu 15 bilood gaaro, kaasoo loo yaqaano booster ama xoojiye ah. laakiin dooska koobaad ayaa waxaa laga rabaa in la siiyo canuga markuu jiro 9 bilood. 9 bilood markay u dhamaato oo bisha 10aad u socdo ayaa la siiyaa dooska koobaad. halkii doos ee la siinayaa huba waa 0.5 mililiter waaye, oo cirbada lagu siinayaa ayaa waxay tahay 0.5 mililiter. haddii hal mar la isticmaalo dib looma isticmaali karo cirbadaas, waayo ayada dhan ayaa waxay tahay single use waaye, hal mar ayaa la isticmaalaa. qaabka ay ku timaado talaalka jadeecada uu ku yimaado waa powder oo waa budo, waxaana laga qaadanayaa deltoid muscle, muruqa markaasi loo yaqaano deltoidka ee gacanta bidix ayaa qofkii laga siinayaa qeybtiisa sare ayaa la siinayaa. waa meesha laga siinayo cirbada dabcan, laakiin cirbadu jirka qeybta ay ka galayso ama route of administrationka ayaa waxay tahay subcutaneous oo qeybta baruurta ee ka sareysa ee muruqa qeybtiisa sare muruqan deltoid loo yaqaano qeybtiisa sare ee deltoidka ayaa waxaa laga siinayaa qeybta baruurta xagal 45 ayaa la siinayaa. qatar uu leeyahayna sida caadiga waa maya, wax qatar ee lagu yaqaano jadeecada talaalkeeda ma jirto. waxaana markaasi difaac ahaan loo guuleysan karaa in shaqsiga uu dhaliyo 95 ilaa 98% ayaa la aaminsan yahay in talaalkan jadeecada maadaama noolihii uu yahay oo sidiisii oo qofka loo durayo inuu dhali karo difaac intaas ayaa la aaminsan yahay. haddaba jawaab celino wuxuu leeyahay yaryar ee lagu yaqaano talaalkan jadeecada ayaa jira. jawaab celinadaas maxay yihiin? jawaab celinada guud ee lagu yaqaano markaasi ayaa waxay noqon karaan oo kamid noqon kara xanuun ayaa kamid noqon kara canug inuu qabto. waxaa kaloo kamid noqon kara in meeshiisa gaduud ay keento, soo gudato, barar inay keento ayaa kamid noqon kara. marka xanuunkaas iyo soo gudashadaas iyo bararkaas ayaa waxay ku dhacayaan meeshii talaalka canuga laga siiyay. marka waxaa laga rabaa hooyo inaad ka warqabtid maadaama adiga tahay canuga hooyadii. waxaa kaloo lagu yaqaanaa mildy fever oo qandho yar oo qandho nuxuus ayaa lagu yaqaanaa. waxaa kaloo lagu yaqaanaa markaasi jac kaasoo u muuqda sidii jadeecadii canuga ku dhacdo kaleeto, yacni ciifkii ka imaanaya canuga marka jadeecada ku dhacdo kaleeto calaamad lamida ayaa ka imaan karta. iyo barar ay bararayaan qanjirada ku jira markaasi qalka iyo dhuun iyo qoorta ku jira. qalka iyo qoorta qanjirada ku jira ayaa barari kara. intaasba inaad ka warqabto ayaa lagaga baahan yahay. ku dhawaad 7 ilaa 12 maalmood in lagu qiyaasay
ayuu kadib markaasi canuga markuu talaalka helo ee calaamadahaasi jiri kara. Calaamadaha yararka ee sidii qandhadan iyo waxyaabahan yararka ayaan soo xusnay iyo bararkan qanjirada baran yihiin ayaa waxay sii jiri karaan 7 ilaa iyo 12 maalmood kadib marka canuga talaalka la siiyo. halkaa ayaanu u gudbaynaa. wabilaahi towfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.